Bismillahirrahmanirrahiim. Halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed. Waxaana rabaa in aan fikirkayga iyo aad ila qaybsataan. Marka dowladda hadda jirto ee 8 February aan doorannay ma ku xadgudubtay sharciga dalka u yaalaya dastuurkayna? Su'aashu waa haa. dowladihii badnaay ee Soomaaliya la soo dhisay waxaan ognahay in ay dowladda dhexdeeda golaha fulinta madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada inay aad isu qabsanayeen. taas inaan waayo aragnimo ayaan ka qaadanay. taasna waxay dhabar jab ku noqotay cadowga laakiin golahayna fulinta waxaan jeclahay in banooniga laga hoos bixiyo. marka waxaan dhihi lahay gaar ahaan geyga Soomaalida nabadda lagu noolaa birihii ugu dambeysay waa okay. ummadda Soomaaliyeedna wax qabadkiina way la dhacday. waxaanse dhihi lahay in aad ka foojignaataan waxa aad ku dhaqaaqaysaan. aadna fiirisaan 4 sano oo joogto ama 5 sano oo joogto aad si calool fiyaabile ilaahay kula ogyahay waxaad u dhaarato waa in aad ma arkino aad meel maraysaa. maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ama masiirka waxaynan ka marnaynin in dhiig Soomaaliyeed la badbaadiyo ummadda Soomaaliyeedna aanu dhamayn. taas waa muhiim iyadana. waxaa muhiim oo lagama maarmaara qarannimada dalka Soomaaliyeed waa in iyadana il gooniya lagu fiiriyo. golaha shacabka waa inay tan muwaadinka Soomaaliga waxaa imahaysa haddii aanan tan laga hadlin muwaadinka Soomaaliga ee activista aftahanka siyaasiga aqoon-yahanka waaya aragga in hal loo miidsado. taas golaha shacabka ee hadda jira ayay ku xiran tahay taas. marka waxaa la rabaa in golahayna baarlamaanka 4 sano noolaga dhammeeyo siduu cadowga maleegayo. golahayna fulinta iyo golahayna baarlamaanka in 4 sano muran ay ku dhammaato ayay ku fikireen. marka ummadda Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay aragti fiican ay qaataan. waxaanse dhihi lahay inaad aad iyo aad arrintan aad u falaqaysaan. waxay dhabarjab ku tahay qarannimadayna iyo dalkayna iyo dadkayna ayay dhibaato weyn ku tahay. waxaan jeclaa lahay inaa intaas aad ila wadaagteen. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.